Giriigii hore, Roomaankii iyo Soomaalida. Qarnigii sideedaad ee Nabi Ciise hortii ayay xadaaradii ka wareegtay faraaciinadii. Waxayna u wareegtay Giriigii hore Giriig oo xadaaradiisu jirtay intii u dhaxaysay 750 ilaa 149 BC. Waa ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Dadkii magaca lahaa ee horkacayay ilbaxnimada Giriiga waxaa ka mid ahaa gaalka la yiraahdo Aristotle oo cilmi xoog leh ku kordhiyay xadaaradii Giriigii hore. Waxaana xilligaasi ay Giriigu gali jireen dagaal fara badan. Waagii hore dabaylaha lagu kala goosho ee badda ee loo yaqaan Mansoon waxa aqoon jiray Carabta oo kaliya, iyaga oo ka faa'iideysanaya dabaylahaas ayay Carabtu ugu kala safri jireen Afrika iyo Bariga Fog. Waxayna u ahayd sir ay qarsan jireen oo aanay cid kale u sheegi jirin. Waxaa dhacday in nin ganacsada ah oo Giriig ah oo soo gaaray badweynta Hindiya uu ogaaday in dadkaasi ka faa'iideystaan dabaylaha. Ninkii markii uu ku noqday Giriiga ayuu fashiliyay sirtii Carabta ee dabaysha Mansoonka. Markaas ayaa ay Giriigu bilaabeen inay dabaysha soo raacaan. Waxaana markaas doonyahoodii iyo ganacsigoodiiba ay soo gaareen xeebaha Soomaaliya oo ay xiriir la soo sameeyeen Soomaalida. Waxaa dhacday xilli lagu qiyaaso muddo 28 sano ilaa 30 sano ah inay Giriigu fadhiyeen gacanka Gardafuul ee cirifka bari ee Soomaaliya. Waxayna muddadaasi halka ka reeran jireen maroodiyaal. xilligaasi Soomaaliya waxaa ka buuxay maroodiyaal, waxaana Giriigu ay maroodiyaashaasi u adeegsan jireen dagaaladii faraha badnaa ee ay ku jireen. waxaa dhici karta qofka hadda loo sheego in maroodiyaal laga reeri jiray Soomaaliya inuu la yaabo, balse dhulka Soomaalida xilligaasi waxa uu ahaa dhul ay camireen nooc kasta oo ugaar iyo duurjoog kala ah. waxaana dhulkaasi waayadii dambe ka dhacay nabaad guur iyo xaaluf duurjoogta la soo daristay. buugga taariikhdii hore ee Giriiga iyo Roomaanka ee loo yaqaan History of Ancient Geography among the Greeks and Romans oo la qoray 1883 waxaa ku xusan in dhulka Soomaaliya loo aqoon jiray dhulkii qorfaha Land of Cinnamon. waxaana buuggaasi oo soo xiganaya buugga qadiimka ah ee la yiraahdo Periples of the Erythraeum Sea uu tilmaamay in dhulka Soomaaliyeed ee laga hadlayo ee laga dhoofin jiray qorfaha uu yahay dhulka u dhaxeeya magaalada Berbera oo loo aqoon jiray xilligaasi Malawa iyo gacanka Gardafuul ee cirifka Soomaaliya. waxaa xigtay boqortooyadii Roomaanka. boqortooyadii xigtay Giriiga waxay ahayd tii Roomaanka oo bilaabatay 44 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. waxayna boqortooyadiisa talada ay haysay ilaa 500 sano. waxaa taariikhda ku xusan in boqortooyadii Roomaaniyiintu ay xiriir la soo sameeyeen Soomaaliya, gaar ahaanna xiriir ganacsi. buugga The Commerce Between the Roman Empire and India oo ku saabsan ganacsiga u dhaxeeya boqortooyadii Roomaanka iyo Hindiya waxaa ku xusan in waxyaabihii dhirta ka soo baxay ee loo iibgeyn jiray Roomaanka ay soo mari jireen Soomaaliya iyo Carabta, taasoo Soomaalida iyo Carabta isku qiimo kaga iibin jireen Roomaanka. ganacsigaasi oo la tilmaamay in Roomaanku ay si isku mid ah ganacsi ula lahaayeen Soomaalida iyo Carabta. tusaale waxaa la soo qaataa alaabadii halkaas laga keeni jiray sida mayraxda iyo fooxa oo Soomaalida iyo Carabta isku qiimo siin jireen. sidoo kale Soomaalida iyo Carabta waxa uu dhaxyaal u ahaa ganacsiga alaabada laga keeno Shiinaha iyo Hindiya, taasoo qiimaha badeecada ee gaaraya Roomaanka ka dhigtay mid qiimo korkoodu uu xoogaa ku siyaadsan yahay. waxaad fahantay in qorfuhu uu soo mari jiray gacanta Soomaalida ka hor inta uusan u gudbin Roomaanka. taariikhdaasi waxaa laga dheehan karaa in dadka Soomaaliyeed ay dhulkaas Geeska Afrika ay deganaayeen oo ay ku lahaayeen taariikh aad u fac weyn, ahaayeen dad xadaarad leh adduunkana uu ganacsigoodu gaaro oo la soo macaamilay boqortooyooyinkii iyo xadaaradihii adduunka soo maray kuwoodii ugu fac weynaa. xiriirkii Giriiga, Roomaanka iyo Soomaalida ama bulshooyinka degan xeebaha Geeska Afrika ma ahayn mid siyaasadeed oo toos ah sida adoonsi ama gumaysi, balse wuxuu ahaa mid ganacsi, dhaqan iyo marin warshadeed commercial maritime exchange. xiriirkani waxa uu ka dhacay dhinacyada soo socda. xiriirka Giriiga iyo Roomaanka ee Soomaalidu waxa uu ahaa ganacsi iyo wax isdhaafsi ka socday dhinaca badda. tusaale ahaan dekedaha Soomaaliyeed sida Obone, Aramota, Malawa, Avalatis, Sarabion iyo kuwa kale ayaa ahaa xarumo ganacsi oo muhiim ah kuwaas oo dubdhaxaad u ahaa shabakadda ganacsiga ee badweynta Hindiya iyo Badda Cas. qoraallo ay qoreen Giriigii hore ama Roomaaniyiintii waxay xuseen magaalooyin xeebeed ku yaalla Geeska Afrika, taasoo muujinaysa in ganacsadayaal Roomaan ah yimaadeen xeebahaas. badeecadaha Soomaalida iyo Giriigu isdhaafsan jireen waxaa ka mid ahaa uduga, incense, myrrh, elephant ivory, geedaha qaaliga ah, xayawaanno duurjoog ah, walxa udgoon. waxaa kale oo Soomaaliya marin u ahayd qaar ka mid ah badeecooyinka Hindiya iyo Koonfur Bari Aasiya. qaar ka mid ah dekedaha Soomaaliya ayaa laga helay raadad Giriiga ama Roomaaniyiin ah sida dhalooyin, dhoobo la shubay iyo agab kale oo ka soo jeeda Giriiga iyo Roomaaniyiinta.
aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad nagala socotaan juqraafi oo aynu kaga hadalno tagtada iyo taariikhda Soomaalida ee haddaad nagu cusub tahay bogga follow saar haddaad nala socotayna like iyo share bay isugu dar si uu u gaaro saaxiibo badan nabadino